wafti biladan oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland rashiid Ducaale Qambi ayaa maanta lagu soo dhaweeyay Buuhoodle. waftigan waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Buuhoodle Mustafa Xaaji Musanur, gudoomiyaha xisbiga Kulamay ee Buuhoodle Salabaan Cabdi Xuseen Salabaan Anjeex iyo mas'uuliyiin kale. qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodle ayaana soo dhaweyn biladan u sameeyay, waxaana waftigan ku soo hakadeen deegaanka Qorlugud, halkaas oo waftigu kulamo kula soo qaatay wasiirka hogaaminayo waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan deegaankaasi. waxay soo mareen deegaanka waxaana markii dambe wasiirka loo soo galbeeyay gudaha magaalada Buuhoodle, waxaana galbinay gaadiid aad u fara badan iyo waliba gaadiidka dagaalka. soo dhaweynta wasiirka waxaa ka qayb ka ahaa gaadiidka dagaal oo aad u fara badan, gaar ahaan gaadiidka BM-ka loo yaqaano oo aan arkayay soo dhaweynta wasiirka ka qayb qaadanayay. wasiirka ayaa markii dambe waxa uu kala hadlay Buuhoodle hooga loogu talagalay, waxaana halka ugu horeen ka hadlay maayirka degmada Buuhoodle iyo gudoomiyaha gobolka Buuhoodle, waxaana ugu dambeyntii halkan ka hadlay wasiirka faafayn ka bixiyay ujeedadiisa uu yimid Buuhoodle. aad baan wasiirku soo dhaweynaa anigoo ku hadlay afkii golaha deegaanka degmada Buuhoodle maayirkii aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa dhammaan ismada ugaasha waxgaradka dhalinyarada ururada bulshada oo dhan. wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta iyo dhulka Mudane rashiid Ducaale Qambi oo annagu aan uga soo aadanahay iyo gudoomiyaha jaamaca deeg cartan sida wanaagsan ee ehelnimada ee quruxda badan ee aad ugu soo dhaweyseen aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa. waxaanu leenahay jazakumullahu khayr. xilligu waa xilli kulul, waxaynu u baahannahay inaynu nabadaynu qaadanay kaanu joogno, inaynu noo adkaato, inaynu habsanka iyo dibudhaca ku yimid gobolkan waa runtii calaamadeena inuu Soomaaliland kaga dambeeyo aynu ka saaro. waxaanaynu kaga saaraynaa markaynu horumar jeesano aynu colaada iyo ilowno sida ay maanta nabadda u tahay inaynu adkeeno. qof kastaana inuu mas-uul noqdo halkiisa xil iska saaro daaduu doonaha ahaadeen. aad iyo aad baa mahadsantihiin. asalaamu calaykum. inay gobolkeenna nabadgelyadeeda aynu maanta ku naaloonayno ay khalkhal geliso waa inaynu iska qabanno weeye, oo aynu ka hortagno weeye, oo aynan wuxuu doonaya aynan la qaadanin. waxaan idinku adkaynaynaa nabadgelyada inaad haysaan oo aad si wanaagsan u haysaan oo nabadgelyada aad ku mintitaan, taasaynu aakhiriya adduunkaba ku liibaanayna. nabadgelyada ma ku mintidnaa kuma mintidno. Buuhoodle inta la ay lagu hawlgeliyo waxaan agtooda oo aan u dhoweyn oo nabadgelyadooda lagu jabiyo wax wanaagsan ma aha. reer Buuhoodlena waxay ku ogaan kartaa wixii kalkaana ka dhacay. ciddii maanta doonaysa ciidamo soo gura soo kacay qolaayay markaada may jirin, maantana waxay u jirtaa ma jirto. reer Buuhoodle waxaan oran lahaa nabadgelyada aad haysataan iyo wanaagga aad haysataan, midaad deris ku haysataan, midaad sokeeyo ku haysataan iyo midaad shisheeyo ku haysataanba waxaa wanaagsan inaad ku faraadaytaan baan oran lahaa. dowladda Puntland, dowladda Somaliland halkan inay wax fidnaa ka kiciso iyo inay wax dhiba ka geysato iyo inay dagaal meel ku qaado diyaar uma aha. qabana mayso, falina mayso, taasina waa xaqiiq jirta. waxaan kaloo u sheegayaa dowladda Puntland oo xaqiiqa iminka waktigeedii wuu sii dhammaanayaa in ay dagaal dadka dhiiggiisa ku bilaabaan si waktigooda loogu kordhiyo wax waxtara maaha, wax darisnimo maaha, wax dadka waxtaraya maaha. taana waxaan oran lahaa walaaladayo in nin mikrafoon ka caytamay waxuma taro, nin mikrafoon ceeb ka sheegay waxuma taro, nin mikrafoon balaaye iyo dad in isku dira ka sheego waxuma tarto. waxaan oran lahaa war Somaliland dagaal ay wadaa oo ay cid ku qaadaysaa oo ay Puntland ku qaadaysaa oo ay bilaabaysaa oo ay horseed ka tahay ma jirto. ولكن waxaan oran lahaa weel ma adeerayaal waqtigii in ka dhamaanay dowladda Puntland ee gaas waqtigeedii si dhamaanayo inaad ku kordhisataan waqtiga dowladnimo in dagaal dhaco oo la islaayo oo dhiig daato waxba tari mayso. wax allaana waxay taraysaa ma jirto. reer Buuhoodlena awal bahiin iyo ciidamo aad siisaan iyo difaacdaan Buuhoodle kuma deganeen tooda iyo ku deganeen reer Buuhoodle. iminka waxaad u tiraahdaa soo kaca oo dagaalama oo balaayo gala
وأرنا ماشي قبل وعلى العثمان سعر الأكثر ورث الفيش كعلم جسمان نيوز مقالة بوهودle حروس قبل